waxa inuu soo dhow foodana inuu soo hayso bishii barakaysnayd ee Ramadaan Allana tabaaraka wa ta'ala waxa kamida nicmooyinkiisa iyo galladiisa aan la koobi karin inuu u sameeyay adoomadiisa waqtiyo ay cibaadada iyo taacada ku tartamaan asagoo adoonka laga rabo xilli walba iyo bil kasta iyo sanad walba iyo xilli walba inuu Ilaahay caabudo ayaa hadana waxa leenoo sameeyay waqtiyo gooni ah oo loogu talagalay inaan galno tartan ziyaada ah laga faa'iideysto bishii barakaysnayd ee Ramadaan baa kamid oo inugu soo aadan waa xilli Rabbi tabaaraka wa ta'ala uu dhaxdiisa dhigay baraka iyo khayraad fara badan waa xilli Rabbi tabaaraka wa ta'ala ummadda Nabi Muhammad sallallahu rabbi wa salaam alayhi hiba loo siiyay hiba qaali ah oo Ilaahay Nabi Muhammad ummadiisa uu siiyay way sallallahu rabbi wa salaam alayhi sidaas daraadeed waqtiga qiimaha badan ee inugu soo socda ee muddada kooban ay ka laaban tahay inaad ku baraarugto way una diyaar garowdo saad uga faa'iideysan lahayd shayga ugu muhiimsan ee maanta ku hor yaalana ka isaga wax naftaada ma ah ganacsigaagana ma ah xoolahaagana ma ah shayga ugu muhiimsan ee maanta miiska ku saarani waa Ramadaan seed uga faa'iideysataa wax dhowr qodob aan tilmaano oo loo baahan yahay intayna bishu soo galin inaynu meel saarno qodobka koobaad iyo tilaabada koobaad waxay tahay inaynu ogaano qiimaha iyo qadarka ay leedahay bishani leedahay jaaniskani intuu leeyahay iyo qiimaha iyo qadarka uu leeyahay inaga mudan yahay inaynu ogaano waa laga marmaan laana kolba shaygu sida uu kugu qiimaysan yahay ayaa dadaalka aad ku bixinaysay uu noqdaa waxayna gaga filan qodobka isaga nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi malakul jibriil baa u yimid markaasuu wuxuu ku yiri ha fogaado oo naxariista Ilaahay ha ka durko ha laga durkiyo ruux Ramadaan u soo galay oo Ramadaan dhamaado korkiisa ku dhamaaday asagoon loo dambi dhaafin wax loogu dambi dhaafo Muuse la iibaanin soonkii bisha salaadihii sadaqadii umradii quraan akhriskii cibaadaadkii dambi dhaafka laga helayay kamuusan faa'iideysanin meelahaas uu taagtaagnaayo waqtigiisa ku lumiyay jaaniskii baa dhaafay Ilaahay agtiisa muxuu ku leeyahay waa dayro way kaas Ilaahay waa dayri waa nin la fogeeyay sababtuna maxay tahay Rabbi tabaaraka wa ta'ala hadduu nicmo ku gudoonsiyo ku siiyo oo nicmadiisa ka shukrin waydo oo siday tahay aad u gudoomi waydo natiijadu waxa weeyaan wala in kafartum in 'adaabi la shadiid in markaas lagu ciqaabo lagu fogeeyo sidaas daraadeed qodobka koobaad inaynu ogaano bishan inaysan bilihi kala la mid ahayn waqtigeedana uusan ilaa noqonin sida sanadka intiisa kale way ka duwantaa wayna ka soocanta waa qodob iyo tilaabo muhiim ah qodobka labaad waxa weey ee mudan inaynu baraarujino in muddada gaaban ee bisha inooga laaban aad ku ducaysato inuu Ilaahay ku gaarsiiyo oo caafimaad kugu gaarsiiyo nabadgelyo kugu gaarsiiyo sidaasi waxa ahaan jiray akhyaartii iyo salafkii inaga horeeyay ridwaanullaahi calayhi 6 bilood oo Ramadaan ka horeysa ayay Ilaahay weydiisan jireen Ilaahu Ramadaanna gaarsiiyo waa jaanis weyn inaad gaari doontana ma hubtid imisa walaalaheen ahaa oo Ramadaankii hore inala soomo inala salaado inala cibaadaystay oo jaaniskan mar labaad aan la siinin adigana waxa dhici karta inaadan gaarin haddaad gaadhana waxa dhici karta ka ku xiga inaadan gaadhin sidaas daraadeed waa in aad Allah weydiisato inuu ku gaarsiiyo bishan adoo nabad qaba amaana ku siiyo qodobka saddexaad wuxuu yahay bishu markay dhalato nabigeena waxa ka sugan salawaatu rabbi wa salaam alayhi inaad ducaysato iyadana oo wuxuu ku ducaysan jiray nabigeena sallallahu alayhi wasallam ducadan sheegnay Allahu akbar
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان إله بيشا نوغو دالي إيمان يا أمان نبتقلية يا إسلام توفيق أدنا وافتشيسو waxaad jecesheed raali ka tahay markaas wuxuu dhigi jiray bilay rabbiga iyo rabbigay waa Allah tabaaraka wa taala ducadaasi qiimaha ay leedahay waxa weeye bishan bilatay kugu soo aaday in khayrkeeda lagu waafajiyo ilaahay ku waafajiyo kuna tuso inaad samaysana ku fududeeyo ayay ducadu ku saabsantahay qodobka xigay wuxuu yahay bishii baad soo gaadhay way noo bilatay nabad iyo nabadgeliyaad ku soo gaadhay caafimaad baad haysataa ilaahay tabaaraka wa taala inaad nicmada uga shukrido ramadaan inaad soo gaadhay adigoo nabad qaba maxay shukriga nicmada rabbi aad garatay ee aad ka shukriday wuxuu keenayaa in siyaada lagu siiyo la in shakartum la azidannakum wa lagu kordhin nicmadii baad garatay waa nicmad diineed waad ka mahad celiso ilaahay baad u aqoonsatay allah tabaaraka wa taala nicmooyin kale diineed buu kuugu darayaa kuugu siyaadinaya sidaasi waa quraanka kariimka sidoo noo tilmaamay oo nicmo markaad ka shukrido tu kale jiidanaysa oo wadataa markaad taa ka shukridana kuwa kale wadataa oo jiidanaysa waxa kada nicamku waa iswataan macaasida iyo dunuubta iyo kufraankuna waa iswataan marka shukri ilaahay nicmadiisa ka shukriyo qalbigaaga ku weynaato qodobka xigay wuxuu yahay ee baraarujinta mudan bishii inoo soo socoto bishu markay dhalato iyo dhalashadeeda iyo soo dhaweynteeda waa inaan ku faraxno waa inaan bishaaraysano waa marti aan aad u jeceshahay waalidka oo waqti dheer ka maqnaa xaaskaadiyo waqti dheer aydan is arkin kulanka kuugu hormaysaad kulmaysaan soo aad uma faraxsanid la shaka fi dalik tabtahij sidaas daraadeed waxa ka qiimo badan waxa soo dhan bishan oo nabad kuugu soo gashay marti qiimo badan way oo ku timid waa inaad marti soor fiican marti soorto soo dhawayso kuna faraxdo imaanshaheeda nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi markay bishu soo galayso saxaabadiisu u bishaareen jiray wuxuu dhihi jiray bishii ramadaan baa idin timid oo soo gashay waa bil baraka iyo khayr badan khayrkeeda iyo barakadeeda la badiyay allah tabaaraka wa taala soonkeeda ayuu waajib idin kaga dhigay iridihii jannada ayaa la furay iridihii jaxiima iyo naartana waa la xidhay shayaadiinta kuwoodii khayrka darnaaye madaxa adkaaye sharka ku mudxay ayagana waa la xidhxidhay waa la katiinadeey habeen baa ku jira bishaas ka khayr badan kumbilood ruuxii khayrka habeenka laga qadiyana isaga ayaa xaqiiqo wuxuu yahay ruuxa qaday oo wanaag oo dhan ka qaday nabigeenu waa u bishaareen jiray marka saxaabada war wax weyn baa yimid war ka gacan fadhiga war baraaruga marka inaad bishaaraysato ood ku farxdo qodobka xigay wuxuu yahay loo baahay inaan ku baraarugno bishan waa inaad qorshayso oo aad nadaamsato dejisato qaabkaad uga faa'iideysan lahay bini aadamku kama soo haro takhtiidka iyo qorshaha iyo nadaaminta kama soo haro habeenada iyo maalinta bishu ka kooban tahay saad uga faa'iideysan lahayd qorshaheeda deji kadibna yuusan jaanisku si fudud kugu dhaafin waxay kugu kaalmaynaysaa in aad sidaad rabtay wax u hesho bitawfiiq illaahi tabaaraka wa tacaala miaal maalan haddaan tusaale idinsi waxaad rabtaa inaad bisha ramadaan aad qur'aanka dhammayso 5 goor waa go'aan Soomaa go'aankaasi waa inaad u dejiso waqtigiisii maalintii imisa goor baad rabtaa inaad fadhiisato quraanka akhrido iyo habeenkii muddo walbana intee juz baad rabtaa inaad akhrido qorshe degan oo isku habaysan oo nidaamkii go'aanka dejisay waafaqsan ayaa markaa ku soo baxaya laakiin si fawdo oo hamaji hadaad bisha isaga gasho barnaamij kale oo qorshahaagaba ku jirin baa ku kaxaysan doonta kadibna bishii waaba dhamaatay qodobka xigay wuxuu yahay go'aan
qalbigaaga ah iyo doonitaan dhab ah qalbigaaga ha laga arko allah tus tabaaraka wa tacaala qalbigaagana ha ka arko inay go'aan ka tahay inaad bisha faa'iideysan rabto daaca inaad rabto aakhira inaad rabto inaad ridihiisa raadinayso go'aanka qalbigaaga ha lagu arko maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala adoomada wuxuu wax ku siiyaa kulba qadarka go'aankooda iyo qaba iyo niyadooda xadiidkii nabiguna waa kii ahaa innama alacmaalu binniyat niyadaada iyo qasadkaaga buu alla fiirinaya xadiidkii waa kii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh inna allaha laa yanduru ilaa suwarikum wala ilaa ajsaamikum walakin yandur ilaa quluubikum wa acmaalikum allah meeshuu kaa fiirinaya waa qalbiga maxaa qalbigaaga ku jira haddaad rabto inaad wakhtiga kaga baxdo laalaab kaga baxdo oo aad wareegaysato ama adduunyadaadaba u badato qalbigaaga hadduu sidaa ku jiro wixii qalbigaaga ku jiray baad ilaahay ka sugi tabaaraka wa tacaala biidni illaahi tabaaraka wa taala saas daraaddeed go'aan oon shakiya laalaab ku jirin oo saadiqa ilaahay ula imo faidaa cazama almru falow sadaquu allaha lakaana khayran lahu man sadaqa allaha sadaqahu tabaaraka wa tacaala ruuxii ilaahay run kula dhaqma ilahay run buu kula dhaqma go'aan dhawa marka la imo qodobka xigaaya wuxuu yahay bishii baa soo socota intaynan bishu gelin waxaa la rabaa inaan ku dadaallo sidii aynu u baran lahayn axkaamta bisha ku saabsan u fahmi lahayn see bisha looga faa'iidaystaa soonka iyo axkaamtiisa salaada taraawiixda iyo axkaamteeda sadaqa haddaad baxsanaysa iyo axkaamteeda haddaad cumraysanaysa iyo axkaamteeda qur-aanka akhrintiisa iyo aadaabtiisa waa inaad barato ood haddaba ku dadaasho qodobka ugu dambeeya ee mudan inaan tilmaanno isagana waxa weeye bisha soo gelitaankeeda ka hor markay soo gasho dhammaadkeeda waxaad ku dadaashaa inaad toobad keento ilaahay u soo laabo wixii dembi aad geli jirteed caadaysatay joojiyo ka go wixii horay kaaga dhacay ka qoomamood oo qalbigaagu ha ka gubto go'aanso inaadan dib dambe ugu noqonaynin ilaahay dartiina u samee markaad saa u toobad keento toobad rasmiya aad keento qalbigaaga wixii daxal fuushay mugdigii fuulay wasakhdii fuushay kulli waa la daahirinayaa qalbigii waa dhalaalayaa waa xoogaysanayaa socdaalka uu xagga rabbi ugu jiro ayuu wuxuu u helayaa awood u helayaa daacadii buu ku sabrayaa qur-aanka akhriskiisu ma dhibayo salaada intii la taagnaadaba waa taagnaanaya waa sabrayaa soonka iyo dhibkiisa waa ku sabrayaa leanna waa qalbi xoog badan oo iftiimaya waay iimaan xoog badan baa ku jira saas daraaddeed baa nabigeennu wuxu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh addoonka markuu dunuubta galo qalbigaa wasakhoobo daxal fuusha markuu soo laabto ka soo laabtana qalbigiisa waa la soofeeyaa waa la sifeeyaa waa la daahiriyaa soo ma aragti marka qalbiga daahiri saan soo sheegnayba meesha ilaahay kaala mucaamalonaya waa qalbiga haddaad aragto adoo caajisan cibaadadii kugu adag tahay jiitamayo cag jiidaaya rafaadsanoo cibaadaysan la aafadu xaggee ka socotaa qalbigaagay ka socotaa kan khayrka u hormaray ee khayrkii ka horeeyana arrintu waxay ka socotaa qalbigiisay ka socotaa bacda tawfiiq illahi tabaaraka wa tacaala alaa wa ina fi ljasadi mudqa ida salaxat salaxa aljasadu kulluh waida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb marka qalbiga hagaaji nadiifi cuqdada ka saar cadhada ka saar xumaanta ka saar shahawaadka jacaylkooda ka saar shubahaadka ka saar qalbiga nadiifi wixii galayna ka toobadkeenoo daahiri si aad bishan si qiimo badan uga faa'iidaysato daacaadkaa rabbiye kala gedisanna aad qaybtaada uga qaadato khitaamka waxa weeyaan iyo gabagabadu waxaad isku daydaa acmaasha bishan taallaayi way fara badan tahay mid walba qayb ku darso mid walba qayb ku darso soonkii waad soomanta salaadiina waad salaadaysaa sadaqada wuxuun ku darso haddaad cumraysan karta gal qur-aanka akhriskiisa ka qayb qaado salaaddii habeenkii ka qayb qaado
khayroon afurinta dadka sooman ka qayb qaado meel kaliya ha isku koobine meel walba inay lagu kugu jiri karto isku day waxay la nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayh acmaal fara badan oo kala duwan markuu sheegay ruux hal maalina inta isla sameeyay janna loo ballan qaaday buu nabi maxamed yiri salawaatu rabbi wa salaamu calayh marka majaal walba khayrkiisa iyo wanaaga yaala inta ugu badaneed ka qaadan karta ka qaado si ilaahay ku saamaxo tabaaraka wa tacaala qoortaadan naar uga xoreeyo jannadiisana kuugu waajibiyo iyo radihiisa tabaaraka wa tacaala bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra